أروح لينا مجا عبد العزيز أحمد نور عبد الله بالإلهة وحكميدها علماء مجالدا يناليردي كأخرين كتبتها لودي يكون يصدح بشي سنة تاريخ ذلك اللي جسوا باللابو تنقل لودي يكون كوي طبعا كي دحدي اللي جسوا باللابو علماء كأخرين أما ضدك وحكا أخرين ينكميدها تاريخ مركز حوي وحاد عضي مالها كميدة ومركز حوي لودي يكون يسقالك بشي لواد بقيمة شنتيري وحاد عضي أنا جو درسي كديرة أو فردية oo akhrinaya kitaabkii aan akhriyayna halka miiska dushiisa adeeyala ayaa waxa dhacday laba nin ma magacaabayo oo mas'uuliyiinta ay noo diiday oo dadkii majliska xukumayay kamid ah koox askarana wata baaniga darsiga dushiisa igu yimid soo baxbaa la yidhi waa la qaaday gobolkan tagnay maxaa dambi oo galay baan ku yiri ma waxaan kitaabkan ahayn baan akhriyay kitaabka laftiisa dambi ugu jawaabay ninkii ولا يسكرنايا كتابك إن الأخرجات دنبيا مساسها بس ضاوكو كان عسنا هميري halkii aniga gobolka marka leeyay halkii markan joogay warqadii la soo qaaday iyo markaas waxa weeyaan wixii marka dacwadii la keenay iyo booliska wixii loo keenayna raggii u keenay qayb kamid way fadhiyaanba waxa dhacday marka halkii aniga oo marka jooga la qaado ani habaana leeyay habaana markii leeyay la wadaysay maxaa sameeyay leeyay كتابك أنا أخريه يعني كتابك محاذ أخريه سالي ده كتابك مدانو أخريه ومحاذ هو أخريه ومن ممنوع ما إلا أخريه هوا ممنوع تاسع على الشباب كتاعي إن تاسع على الشباب كتاعي هوا أنا مركز ولكن شيء حد كسر شيء كي أنا يقول لبيه تصمن هبين بواحد على وحان دلنا قعنا حاجة صاير جيد هالكاس يروحنا قعنا واحد يروحنا البابور كتير وشيء labada lugoodna way ilaalaadeen saasan 12 habeen u daldalnaa ishaaga marka la adibana waa leeyahay xiray subaxa marka salaada subax laga baxana waa leeyahay furay waanan qaawana xataa inaan dadkii salaada ku tukado waa leeyahay diiday salaadaadu waa salaad al-shabaab bayna ugu yiraahdeen ma tukan kartid salaadiba kuma banaana waa ka xaraam wallahi ma qad fiya hadalkaas ugu yiri dabadeed waxa dhacday qacmahaas way googo'een bararba inta la ekaadeen dabadeed waxa dhacday inuu jirkaygii oo dhan uu marka qallafay oo nisaay kari waayay oo waliba tarbiyaha ku qabsan kari waayay qacantoon ku istiyeysan kari waayay sida marka 12 habeen ahaa baa waxa dhacday oo ii dheeraayeen mar dab la igu dhajiyo qor dabo inta leeg hadda halka hadii laga qaado maxayna raqaabada muxuu ahaa khamiiskayga dabkii sidii uu hadda madow yahay qor dabo inta leeg oo sida la igu dhajiyay oo ilaa intuu dabkii ka baxteeyo dheecaanka jirkaygu ka baxtiinay lagu sugayo lagu hayay ya dabadeedna sidii la igu qaado la igeeyay markaas waxa weeyaa meeshii dhexe halkii markii la igeeyayna Yuusuf Jalaal markaas waxa weeyaa waan isku nimid sideedaad baan bila badan ku wada jiraynay sideedaad meesha ciqaabtaan baan bila badan ku wada jiraynay iyo muddo aad u dheer waxaanan ahaa dhalinyaradii xagga laga qaaday maalinkaas waan badnaynay waxay ahayd markaas waxa weeyaan ninkii ugu horreeyay waxaan ahaa meesha caqabada la geeyay baan ahaa habeenkii 5 nin baa la ii diyaariyay saddexaad baan aniga la geeyay habeenkii ugu horreysay 5 nin 5 waxay wataan mid baxar saaf jeexo inta leeg buu wataa mid wuxuu wataa tumbadan caaga adag ee qalafsan inta leeg mid bakoorad buu wataa kun waxbay kala wataan markuu mid daalo mid kala soo kacay waana kaliya oo xataa cid garaacayga nasiso markii laga yardaa loo talaabo ma joogin habeenadaas waxa dhacday markuu mid daalay mid kala soo kacay dabadeedna kaasa hadana daari ka saddexaad ba hadana daari ka afraad ba hadana daari ka shanaad ba hadana daari habeenkii oo inta miir doorsoomay yaa waxa dhacday jeerkana farbadan biyana meesha way yaalaan waa lagu shubaya waan qaawanahay baxar saafka meesha saa lagu dhufto laba jeer oo dilaacaysa qac hadii hadda jirkayga laga faydo dildilaaciya sidii uu yaalaa sidiina weeyaan sidii baan jirkaygu dilaacsan yahay in badan oo kamid ah habeenkii oo dhan matagii iyo dhiigaygii iyo dheecaankaygii wuxuu buuxiyay qolkii aan keligay ku jiray oo daf ahaa halkii waa markaas waxa habeenkii dhan sida aan ugu jiray halka muddo markaan ku jirayna waxa dhacday markaa waa la iga saaray haddana waxa weeye sideedaadaas la keenay saddexaadii inta la iga soo wareejiyay marka wax la soo koobi karo ma aha laakiin waxaan rabaa inaan 5 qodob ugu muhiimsan oo wixii la sameyn jiray aan tilmaamo koow waxa ugu muhiimsanaa
in ninka culimada inta la seexiyo in jeerkaana xaaro boosaneerada laga soo daray in la yiraahdo afka iyo indhahaba kala qaad oo loogu shubo oo xataa iskuma qaban kartid la yiraaho baa markaas waxa kow ka ahayd waxa kow ka ahayd inta la qaawiyo oo la diido xataa inuu cawradiisa asturo in haddana markaas waxa weeyaan habeen barkii koox inta fiilo la soo geliyo markaas waxa weeyaan biyo lagu shubo markaas waxa weeyaan baxar saaf iyo bakoorada iyo markaas waxa weeyaan tuumbooyin caaga lala dhaco oo jirkiisu googo markaas jirkaas intuu dhiig isku darsamay baa markaas waxa weeyaan ay dhiigiisa u wada hooray lugahayga ilaa hadda in yar ma taagnaan karo in yar inta hadda aan taagana waan daalayaa hawshaas marka taas laba ka ahayd saddex waxa ka ahaa in ninka culimada ah waxa kaliya lagu bilaaway in hooyadii aabihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaan u joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintu caay hal mar 7 jeer baa loo sacbeeyay 7 jeer baa loo sacbeeyay waxa ninkan uu saxsan yahay waa nin isasaxay oo markaas waxa weeyaan fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobad keenay yaani al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqaddasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo al-shabaabnimo halkaas ay taagnay waxa kamid ahaa dhibaatooyinka dhacay iyo mushkilaadka dhacay waxa kamid ahaa ee meesha ka dhacay in sida ay walaalahayba soo sheegeen qofka in la iska xukumo ani maalinkii la keenay maxkamadda muddo aan halka iska jooga la keenay waxay ugu dhaartay nimankii majliska dadkii majliska u talinayay ee diintan hogaaminayna lahaa ma magacaabayay baa ugu dhaartay oo kitaab quraan gacanta saaray oo ninkan waa al-shabaab maxaa ku cadeynaysiin markii la yidhi waxay yiraahdeen waxaanu ku cadeynaynaa ninkan waxaan soo qabanay isagoo dad wax u akhrinaya ilaahay baan ku dhaariyaa fiiriya haddaana xataa wax ka tagin waxay ku dareen mawliidku diiday kitaabku aan arkayna xataa law haday noqon lahayd dhibba ma lahaateen mawliid ma ahayn be kitaab usul fiqh way garanaya sheekh xasaniye mudakkiratun fi usul fiqh baa la shanqiidi baa iska cid waliba way garan halkan uu dil yaala hadda kitaabkaas aan akhriyay iyagana igu dhaartay marka waxaan warkayga ku soo koobaya ninka culimada koronta laga sheekeyn jiray la isku qabto xiniyaha laga qaban jiray in badan halka fadhido hadda xiniyaha qaybla ama markaas xabadla ama labadaba la waan garanayaa in badan baan garanayaa in badan waxaan garanayaa in dhabeeshay in badan waxaan garanayaa markaas waxa weeyaa siday u matagayeen ay dilaacday intaasi oo markaas waxa weeyaa sida wax lagu dhufanayay waxaan ku soo koobayaa laakiin hal la ogaado maanta xukuumadda iyo culimo awdiinka iyo ummadu ha ogaato dadkii waxa sameynayay 90% dadka culimada dadka waa inay ahaayeen inay iyaga ahaayeen 90% ha ogaadaan iyaga ahaayeen sababtoo ah systemkii jiray ee markaas hadda tagay dadka wax u gudbinaya iyaga ahaayeen cidii wax u gudbinaysay cidii markaas waxa weey cadeymeedina waba la hayaa hadii loo baahdo lafteeda cidii wax u gudbinaysay wax badan oo kamid ah waan haynaa cidii wax u gudbinaysay ee u warramaysay iyaga ahaayeen saadarteed waxaan leeyahay oo waliba tan xukuumadda ka codsanayna waxa magacaabayno qalaalaaso sameeymayno dib sameeymayno laakiin sidoo madaxweynuhu sheegay khayr allah siiye horta hana loo soo taaga hadii ilaahay yiraahdo dadkaas cadaaladda iyo maxkamadda loo soo taago cafiska markaa ama anaga cafin ama anaga deysan markaa intaasan ka codsanayna eegana waxaan ku darayaa hal qodobkaas waxa weeyaan dadkii sida ay la dhaqmay ee sida noola dhaqmay ee diideen quraan la dhigo ee diideen kitaab la akhriyo ee diideen dadka wax loo sheego maanta waxay taagan yihiin wallahi thumma wallahi inaan dadka waxba loo sheegi karin wali saasi si aaminsan yihiin waxaan taa cadeyn uga dhigayaa 2 cisho ka hor masaajidka bilaal baan doonay inaan markaas waxa kitaabka bilaabo aniga Cabdicasiis waxa la yiri kama bilaabi kartid waxba kama sheegi kartid laguma akhrin karo wax diina masaajidka waxaan in masaajidku haduu adiga idinka idin xirxiran yahayna waaba la ogaan guri ilaahay haduu yahayna waa la ogaani eegana waxaan codsanaynaa in markaas taana iyadana in wax laga qabto oo diinta islaamka ummadda in loo sheego oo loo sharxo masaajidda waxna laga hagaajiya waxna laga saxa waxna ay ka dhacaan in markaa loo fasaxo ay culimadu masaajidoodii iyo marka madaarisoodii sidoodii maanta inay wax uga sheegi karaan
oo ummadda wax ka gaadhsiin karaan inaad taana loo ballan qaadaan halkana ka codsanayna hal qodob ay hadda hal daqiiqan ku soo koobaya raalli ahad waa idinku dheeray qodobkaasi wuxuu yahay dadka iyo markaas waxa weeyaan carruurta iyo ciyaalka iyo dumarka sida loola dhaqmayo haddii gacanta lagu dhiga ama la helo sida loola dhaqmayo ragga si ka badan baa loola dhaqmayo intaasoo qof yaa baa markaas waxa weeyaan dumar ah oo meesha markaas waxa ku dhibaataysnayd baan garanaynaa marka waxaan dhihi lahaa wixii hore oo dhan ama xaraf afka la isku shubo ama baxar saaf la isla dhaco ama koronti iyo dab la ololiye iyo gargara madaxa la isku galiyo wallahi uu joogaa ninkii gargara inta ololaya inta madaxa loo galiyay oo timihii oo dhan ay gubteen wajiguna dhalaalo diirmay halkan uu joogaa hadda wuu joogaa ama taa ha noqoto ama ha noqoto markaas waxa weeyaan nin la figeeyo sida loo xiro la yiraahdo 10 ninow dulmara 1 2 3 talaabo la qaado oo kor iyo hoos loo sii dulmaro oo ilkiisa ay daataan in badan oo halka ku ilka weydayna way joogtaa way garanayaan rag badan oo kamida way garanayaan markaas cabdinuurna anaaba ninkii ilka dhigay anaaba lahaaba maalinka ayada oo ma xidhneen marka ayada waxaan marka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dadka noocaasa in wadaado ayay u banaayeen wali baatana mana magacaabayno haddii wax kale aan looga qabanin oo hantina loo soo celin oo intaan xidhnayn wixii naga baaqday aan loo xisaabinin cadaaladda loo soo taaga dadka wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh